بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم daawadayaal waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanaya istuudiyahayaga magaalada London waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxaa isku soo dubariday al-ustaad Muxyidiin Diiriye Nuur Wadani oo Kanada jooga barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay ka hadalka xaaladaha u dambeeya ee Soomaaliya waxaana martino ah xildhibaan baarlamaankii sagaalaad dowladdii Cabdullaahi Yuusufna ahaa ku-xigeenka hay-adda socdaalka caana ah xildhibaan Cabdibarre Yuusuf Jibriil oo dadka hadda Soomaaliya iyo idaacadaha ku xiran telefishinada aad ula socdaan isagaa noo martiya saad la socotaan gaar haye waa gole ay u gudboon yihiin gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo adduunka joogaan dowladda guna kama qaadano gacan saarna lama lihin mucaaradka cid gooni ahna uma adeegno fikirka waa lagu kala disnaan karaa danta guud waa mid gabagabada hadalku goorya ayaan waa sidii gujis allaha u naxariistay u lahaa aanu kuu garownee gaar hayow gayega ilaali xildhibaan hore soo dhawow Cabdibare dadku way ku yaqaanaan tacriif loogama baahnid madax baad soo ahayd dowladda Cabdullaahi oo kale xildhibaankii baarlamaanka kii ka horreeyey waa taa baarlamaan ahayd waxaa la ogaa adigoo madaxweyne xasan mucaarad aad uga ah inkastoo dhib kaa soo gaarin maxaa isbedelay ma loo darsaday farmaajada sida la muuqdo waxaad moodaa inaad ama saaxiib la ahayd ama aad ku jirtay dadkii taageerayay marka wixii aad raadinaysay isbedelkii ma lahaya kusoo dhawow bismillahi gaaraya aad u mahadsantihiin waa run sida aad sheegtay haddaan madaxweyne xasan sheekh mucaaradnimeedu ma ahayn mucaaradnimo aan ama kursi aan kaga doonayay ama jaga aan kaga doonayay ama dhaqaale aan kaga doonayay waxay ahayd madaxweyne waxaana khaldana hala saxo dalkaana wuxuu u baahan yahay wax kasta in la saxo horta taas ayadoo xasan sheekh anigu qabiilna kuma eryoonayn reebelna kuma eryoonayn sida dad badan aaminsanaayeen sida aad sheegtay dowladdan runtii dowlad aad loo hanweyn yahay oo boqolkiiba boqol loo soo dhaweeyahay qof kastoo muwaadin Soomaaliyeedna wuu soo dhaweeyey saaxiibtinimada waxaa ka weyn qofka haddaad saaxiib la tahay laguma saaxiibo waxba waxa la burburinayo iyo waddankiiyo baabaayo laguma saaxiibo qofka adoo saaxiib la yidhahdaa waxaana khaldan waxaana la toosin marka runtii waxyaabo badan bay ku kala duwan yihiin oo farqi weyn baa u dhexeeya laakiin waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u caddeeyo hankii laga rabay dowladdan hadda dhalatay xukuumaddan ama ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha ahaado wadadii laga rabay ama hankii laga rabay oo Soomaali ka rabtay inayna marin baan qof walba u caddeynayaa marka waa waxyaabaha igu kalifay inaan iraahdo war waxaana khaldan oo aan ka aamusin marka waa in la kala saaraa saaxiibtinimada iyo dowladnimada waa in la iska isku xiro maaha waa tahay marka intaada bilaabin hadalka dowladda iyo dhaliilaheeda madaxweynaha ma u tagteen ma u naseexayseen ma tiraahdeen ma haakada turadul ibil saas wax looma wada ma ku tiraahdeen aad iyo aad waxaan u malaynayaa aniga u yar inta aan u tegey oo aan muxuu ahaa la fariistay in ka badan dhowr iyo 20 jeer madaxweynaha waa hor fariistay talooyin badan oo dalku ku soconayana waan siiyey dalkan meesha laga soo celiyana runtii waan siiyey laakiin waxaan moodaa waxaasoo dhan madaxweynuhu inuusan dhag jira u siino qofka uusan fiirinayno hayee buu ku leeyahay laakiin wixii meeshoodii bay taagan yihiin waxaana fiican ninka mas-uulka ah wixii loo sheego isagu bannaan guduhu ku jira laakiin dadka bannaanka jooga waxay arkaan khaladaadka socda iyo dhaliilaha socda marka runtii energy badan waa gashay welina kama quusan inaan iraahdo waxaana khaldan waxaana la toosiyo ama ra'iisul wasaaraha ahaado ama madaxweynaha ahaado ama wasiirada laftooda ha ahaadeen ama xildhibaanada ha ahaadeen inaan qof lagu dooriyo war waxaana khaldan dalka wadadan hadda ay ku socdo horumar laguma gaaro wadadana ha la qaado tanaa wanaagsana ha la qaado runtii in badan waa isku dayeen laakiin kama quusan weli waa tahay taageerayaasha dowladdu waxay sheegaan qofkii ayaga mucaaradaba qaarkood waxay leeyihiin ama waa qof weyn oo iska kharif ah oo la qabsan karin systemkan hadda dadkan dhalinyarada ah ama waa xildoon marka ma dhici kartaa inaad xil raadinin sidoo aad ugu caraysan tahay xil ugu diiday
baan uga xumahay su'aashaas waana jeclaa su'aasha in la weydiiyo anigu waxaan jaga iiga weyn oo jaga aan ka doontay iiga weyn dalkan oo horumar gaara dalkan oo barwaaqo hela dalkan oo cadaalad hela intaas iiga weyn xilligii xasan sheekh markaan aad u mucaaraday oo lahaa waxaana khaldan xildhibaan qaran baan ahaa kursina kama rabin kursina igama bannaanayn dadka wasiirada u carara ma ahayn anigu waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo dhab ah oo ka gubanaya dalkan meeshuu soo maray iyo meesha la keenay iyo meeshuu u socdo hadda dowladdan madaxweyne cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre waxaan shacabka soomaaliyeed ku wargelinayaa hadda yidhahdaan kursi qaba kama qabanayo kama doonayo aniga kursi waxa igu filan dowladnimo waxa igu filan wixii ay soomaali ku aamintay oo loo dhiibay oo ay ku dhaafteen inay sameeyaan taas aniga dowladnimo ah taas aniga sadnadii ah taasaa kursi ah taasaa qiimay ah marka yaan la isku xirin qofku hadduu yidhahdo waxaana khaldan in la yidhaahdo kursigu raadinaya waa ogahay taageerayaasha dowladda waan ogahay inay hadalba ka dhigteen qofkii hadla oo yidhahdo waxba khaldan inay cay la soo istaagahayaan haddii haddaad aragtid qof caytamahaya oo qof fikrada ku caayahaya oo taladii uu soo jeeda ku caayahaya kaas anigu waxa arka waa nin jeclaysi oo saaxiibkay maxaa wax looga sheegaya macnaheedu marka dadka waxaa kale fiican inay kala saaraan saaxiib iyo qaran iyo dowlad in la kala saaro taasaa fiican marka taasaa ugu nasteexaynaya waa tahay madaxda xukuumadda iyo madaxweynaha iyo taageerayaashiisu waxay leeyihiin annagu hadda hawl baanu qabanay baarlamaankii iyo madaxdii is cayrsan jirtay hadda waa midownay mushaaraan bixinay maamulkii hawadaa soo celinay mashaariic qurux badan baan wadnaa marka wakhtigaan looma baahna in nala mucaarado marka arrintaas soo looma garaami karo horta waxaan rabaa arrintaa dadka inaan uga shaafiyaan horta aad u jeclahay arrintaa dadka inaan aad uga shaafiyaan jeclahay horta mar haddeen ayagii isqabsan oo ayna ismucaaradin haddeen ayagaa iskeensaday waa wax wanaagsan inaan ismucaaradin midda mushaaraadka hartay mushaaraadka way ku khasban yihiin wax lagu faana maahan isma khilaafno iyo mushaaraad horta laguma faano wax qabad maahan mushaarkan waa wax dowliya oo ay ku khasban yihiin in dowlad kasta bixiso oo mushaarka shaqaala la bixiyo wax qabad maaha haddayna iskhilaafina haddee waa wixii la ribayo ayaga dhexdooda waxa iyaga iskeensaday wax qabad lama oran karo taas mushaar baan bixinay wax qabad lama oran karo mushaarka waa ku khasban yihiin hawada soo hartay muxuu ahaa soo celintii hawada runtii waan ka xumaa inay yidhahdaan waa soo celina process dhammaaday oo horey u socday oo dowladdii xasan sheekh runtii aad uga shaqaysay weliba xilligii uu joogay wasiirkii siciid qorsheed uu joogay uu soo dhameeyey oo horta miiska saaran bay la kulmeen waxa iyagu hadda intay keeneen iyagu ay ku faani karaan oo dalkan maanta ka dhacay horta malan markaan xaqiiqa ka hadlo waa dhabta markaan ka hadlo anigu ma jecli qofku wuxuusan inaan ka sheego maanta haddii loo tagay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aad tirahdid 17 bilood oo maraysaan maxaad qabateen maanta la yidhaahdo maxaa qabateen maanta la yidhaahdo runtii ma ay oran karaan waxa qaban ay ku faanayaan keliya waxa weeye mushaar baanu bixinay ismana khilaafno haddee taas wax qabad lama oran karo qof kasta maanta waa ka dhargsan yahay 17 bilood waxay qabteen anigu ma qarin karo yes wax waa qabteen qofka bilaadanka wuxuu qabtay in laga been sheega ma ahan waxay qabteen ugu weyn siyaasiyiinta way la dagaalameen waxay yidhaahdeen car hadla baarlamaankii bay kala qaybiyeen oo muxuu ahaa baarlamaankii bay kala qaybiyeen laba garab ka dhigeen oo guddoomiyihii baarlamaankii ka meeshii ka saareen wax qabad lama oran karo maamul goboleedyadii indhaha u ahaa oo caqliga u ahaa oo talada ay ka qaadan lahaayeen oo ciidamada ay wada qori lahaayeen oo amniga ay ka sugi lahaayeen bay muxuu ahaa ay dagaal ku qaadeen oo kala qoqobeen marka haddaan dalkan runta laga hadlin horta wax badan baa halaabahaya sideedana waxyaabaha hadda aan sheegaya ma aha mucaaradnimo ma aha mucaaradnimo lama oran karo waa toosin khaladaadka in la tuso taageerayaasha dowladda la tuso ay u sheegaan in dhaliilo badan baa laydiin sheegaya toosin in la yidhaahdo gaar haya horta muhiimaddu waa midaas weeye dalka annagaa joogna annagaa dhex joogna nin dibad joogoo taageero ka ah maanta waa ka xuma inuu yidhahdo muxuu ah wax badan baa la qabtay kuwa gudaha joogaa maanta oo taageerayaasha ah baa maanta yaaban oo leh war waxaan muxuu xaggee baynu u soconnaa marka xaqiiqda dhabtaa horta in la taabtaa fiican midda dhabtaa in la taabtaa fiican haddii qofkii yidhahdo war waxaana khaldan waxaan hala toosiyo waddadan dowladnimo laguma socdo
hal la isku keeno waa dad wax dhimay la isku keenayo waa dad aan weli dib u heshiisiin loo samayn dadka ayaga iskood isugu soo noqday dowladdii 2007 markii dowladdii cali maxamed gadi cabdullaahi falkan yimaadeen shacabka Soomaaliyeed iskii buu soo noqday muxuu ahaa iskii hadduu u soo noqdayna muxuu ahaa dowladdaasu isu keentay ma laha marka muhiimaddu taas weeye waa tahay waa habaysan kartaa wixii kaa dhiman din khalada maartay waxaan intaan laga gudbin arrintan ah dadkan waxtarkii dowladda maxaabiis baa hadda la keenaa oo maalmahan aragnaa oo ayaama dhexe la keenayay marka arrintii maxaabiistaas maxaa ka leedahay runtii maxaabiistu xaq bay u leeyihiin maxaabiis baan soo dayno laguma faano maxaabiistuna sideeda waxa weeye hadde waa dad Soomaaliyeed inay soo daayaan waajib bay u leeyihiin marka maxaabiistan lafteedu process socday ahaayeen oo aad u socday ahaayeen marka taasna lama oran karo waxqabad lama oran karo waa tahay daawadayaal waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanaya istuudiyahayaga magaalada London waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxaa isku soo dubaraday al-ustaad Muxyidiin Diiryo Nuur wadani oo Canada jooga waxaa martino ah xildhibaan ka mid ah baarlamaankii sagaalaad horena madax uga ahaa dowladda Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Geedi hay'adda isbitaalka hadeerna ah dadka outspoken way ka hadla idaacadaha oo dowladdii xasanna mucaaradka ahaa haddana saan ka fahanay mucaaradnimadii sii wataa marka waxaan weydiinaynaa bal isbarbardhigga dowladdii hore uu ka hadli jiray oo mucaaradku ahaa iyo midda hadda cabdi barre hadda waxaan usoo gelaynaa bal dowladdan waxyaalaha ay markii bilowga ahayd ay xoogga saartay oo ay ka hadli jirtay waxaa ka mid ahaa arrimihii ciidamada iyo amniga marka bilihii lasoo dhaafay amniga maadaama aad ku sugan tahay muqdisho xaggee bay arrinta xaaladda amniga waddanku maraysa bismillah horta arrintaas amniga waxa weeye anigu amniga horena waa uga hadli jiray haddana runtii aad baan uga hadlay amniga waxaad moodaa xoogaa runtii in xoogaa qaraxyadii aad loo yareeyey oo dhinaca qaraxyadii ay aad u yaraadeen laakiin waxaa laba jibaarmay iyadoo la sameeyey ciidamo aad u fara badan iyadoo la sameeyey roondo joogtaa la sameeyey waxaa aad iyo aad u kordhay dilalkiibaa aad u kordhay oo hadda aan kala joogsi lahayn waad aragteen duhur cad in la isku sawirayo qofkii maaragtay la dilaba iyadoo maaragtay ugu sawir ay dhacday taasna macnaheedu malaha dee waxay arkeen dee dowladdiiyo meel markay tagto ama shirki qabato ama meel marayso sawir un keliya iskala daashay taliyaashii ciidamadoo habeenoo madow dad masaakiin oo biyo qaadeen carruurihii dhabarka saartay isku sawiray dee ayana qoladan wax dilana waxay yidhahdeen aanu geesay qaadanno aanu muujinno waxyaabahay sheegayeen aan wax ka jirin annaguna dilka aanu isku sawirno horta waa ayan darre aad ku soo kortay bishaan soonqaad oo hadda lagu jiro iyadoo weliba amnigii aad loo sugay waxaan filahayaa 29 qof baa dhimashadu maraysaa bishaan keliya bay maraysaa marka waxaad moodaa dhinaca qaraxyaduna inay yaraadeen dhinacii dilalkuna aad u yaraadeen sababta middaas keenaysana anigu waxaan ahay nin dhinacaan amniga aqoon sare u leh aad aqoon u laanahay waxyaabaha keenaya waxa weeye hay-adihii amniga oo shaqooyinkoodii isku qasan yihiin oo aan la rabin sidii la rabay inay hay-adaha amnigu u qabtaan hay-adaha amnigu waa laba hay-adood labada hay-adood ciidamadu sida waa kala qaybsan yihiin ciidanka militariga waxaa loogu talagalay foorinka bannaanka loogu tarayo wixii dalka dibadda kasoo weerara ciidankan asluubteeda waa iyagu waa iska ciidan maxaabiiska ilaaliya ciidanka booliiska iyagu waxaa loogu talagalay inay ilaaliyaan maaragtay amniga magaalada inay ilaaliyaan oo mudaharaadyada iyo tuugada iyo dilalka laakiin dalkaani meeshuu ka maqan yahay oo innaba marnaba aan muxuu ahaa nimankan dadka dilhaya marna aan laga guulaysanayn meesha waxaa ka maqan hay-addii sirdoonka oo u qaabilsanayd waxaan u qaabilsanayd hay-addaasna waxaad moodaa runtii indhaha aad in looga riday nin tuuta qabaad waxaa arkaysaa oo baabuurta ginninkaa ku gaashaaman baa leeyahay nabasuguduna qaabka uma shaqaysta arrimahaasna runtii madaxweynayaashii waxa yacni arrintaas amniga aad uga shaqeeyey
oo runtii ay amnigeedu aad u sugnaayeen oo qofkii caawinay dala subixii lasoo qabanayay waxaa ugu dambaysay dowladdii xukuumaddii madaxweyne ra-iisul wasaare cali maxamed gadiye cabdullaahi yuusuf waxay sameeyeen dad aqoon u leh hay-adaha amniga ama booliiskii ha ahaadeen ama nabadsuguddii ha ahaadeen ama militariga laftigiisii ha ahaadeen dad khibrad u leh oo aqoontood u leh baa la keenay baa shaqaynayay waxaa shaqaynayay sirdoonkiiba aad u shaqaynaya looga shaqeeyey waxaa la adeegsaday sidii nabadsugudu ahaan jirtay sirdoonka hay-adahoodii kala degsanaa iyo baa la adeegsaday waxaad moodaa wixii ka dambeeyey dowladdii xasan sheikh iyo dowladdii sheekh shariif iyo tan madaxweyne farmaajo waxaad moodaa iswaddo inay qaadeen oo dalka laga ilaalinayo dadkii aqoontaas u lahaa oo waayo aragnimaas u lahaa waxaa fiican dadka waayo aragga in laga faa'iidaysto aqoontooda laga faa'iidaysto kartidooda laga faa'iidaysto marka meesha dalka waxa ka maqan oo Soomaalidan ka maqan hay-addii sirdoonka dalka ka maqan booskeedii waxaa lagu bedelay ama waa saaxiibkay ama waa isoo loo bangareeyey ama ninkaana maaragtay muxuu ahaa saaxiibtinimo lagu keenayo laguma keenayo aqoon iyo karti iyo waayo aragnimo laguma keenayo marka dalkan amnigiisa dhibaatada haysata ilaa la saxo hay-addii sirdoonka ilaa la saxo oo hay-adii saraakiishii aqoonta u leh loo dhiibo oo laga daayo maaragtay saaxiibtinimo iyo niman weligiba askari arag noloshiisa askari arag baa waxaa laga yaabaa waa dhacday generaal baa la siinaya hadda hal maalin kama haysto dishibliin askarinima kama haysto mid kale loo dhibayayo noloshiisaasna muxuu ahaa maalin aan xataa unug waxay tahay macnaheed aqoon ama amni si loo sugo aan aqoon marka dalkan waxa weeye waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan dareensiiyo dhibaatada loo soo qaban waayey hameen kasta intaasoo shacab oo masaakiina lagu dilaya intaasoo dhibaatada loo geysanaya waxaa la ismaray qaabkii amniga loo sugi lahaa waxaa ka weynaatay waxa la yidhahdo 4.5 dee 4.5 waxa lagu keeno laakiin anigu waxaan aaminsanahay hay-adaha amniga inaan marna 4.5 lagu keenin in lagu keeno aqoontooda ilaaha walaala ha ahaadeen ilma adeer ha ahaadeen in yacni lagu keeno aqoonta waayo aragnimo marka waddanku ma degayo ilaa hay-addii sirdoonka inta la dhiso saraakiishii aqoonta u lahayd ay gacanta ku dhigaan oo loo dhiibo oo hay-addaasu qaabkii ay sirdoonka ku raadin jirtay ay ku raadinayso xamar waxaan aaminsanahay intaan gobollada kale loo gudbin haddii hay-addaas sirdoonka maanta la keeno oo la habeeyo oo saraakiishii aqoonta leh la geeyo waxaan aaminsanahay xamar muddo ka yar 2 bilood in lagu noolon doono amnigeeda iyo maaragtay horumarkay gaarayso taasaa muxuu ahaa runtii meesha ka maqan dal aan sirdoon lahayna sidiisa lama helayo kan tuuga ka midka wax dila kan wax baaba'asha weli ma waad maqasheen intaasoo qof baa la dilayaa hebel baa la soo kooxa hubaysan baad maqlaysaa dadkii shacabka ahaa oo la kasban lahaa askarigii tuutaha qaba kaleedahay tuutaha waa lagu carari jiray ninka shacabka tuuta markii askari tuuta waa lagu carari jiray maanta dantu waxay kaliftay in tuutii laga cararo oo qofku tuuta marka hore tuutii ka cararo maxaa yeelay ninka tuutii gabadhii baa taleefankii laga qaadaya wiilkii baa taleefankii laga dafaaya bilaa macda qof maxaa shahaada suur baa qof lagu xiraya la soo qabsanaya marka dee ninkii sirta kuu keeni lahaa oo cadowga sirta kuu keeni lahaa dee haddii indhaha laga riday oo asagii muxuu la dhibaataynayo adeer dalka taasaa ka jirtay taasna ilaa la soxo dalkaanu ma degahayo ilaahay haddii sirdoonka la dhiso dalkaanu ma degahayo waa kow waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin baad tiri waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin runtii in badan waa isaga mid yihiin madaxweyne xasan sheekh dhibaatada ugu weyn oo waxay ahayd xagga maaragtay waxa lagu eedeyn jiray aad loogu eedeyn jiray dhinaca musuqmaasuqa iyo dhaqaalaha lagu eedeyn horta midaan waa ka simayeen oo xasan nimankaanu waxay dhaamaan oo uga hormareen dee waxay samaysteen boqolaal dhalinyaro ay samaysteen oo facebooka ka difaaco malaayiin dollar lagu baxsho magaalada waxa u jooga malaayiin u joogto maaragtay ku faanaso tira waxba qaban dhaqaale lagu bixiyo aan shaqaale dawladeed ahayn musuqmaasuqa horta waa kaga hormareen waxa kaloo xasan kaga fiicnaa runtii oo anigu aan xasan sheekh aan mucaarad ku ahaa kariirka aan ku siiyey wuxuu ahaa nin dulqaad badan buu ahaa nin maanta oo dhan haddaad daliishiisa sheegaysid aan xanaaqayn aan hadal xun ku oranaynin iska qoslayo ku imaanayo ku yeerinaya nimankaan hadda markaad la hadasho tiraahdo ama waxaad ka sheegtid ama aad daliishooda sheegtid ama ay warkaan qofkaasi inuu aqoon-yahayo aqoon leeyahay horta albaabadii ka xiranaya nin aqoon-yahana ma arki karaan colaad bayba u qaadeen nin cirrale ma arki karaan oo nin cirrale waxay leeyihin waa waayo araga horta ma arki karaan isaga midda kale dulqaad ma lahan oo waxay dulqaadan karaan ma lahan oo haddee dalkan dhibaatuu soo maray waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare
habeen iyo maalin siyaasiyiintii la shirahaya mucaaradkii u yeeranaya madaxweyne waxaa la rabay mucaaradkii u yeeranaya la shirahaya taasuna meeshii ka maqantoo waxaad moodaa ninkii mucaarad in leeyahay hala soo afjiro hala soo xiro haddee dalkan horta dal nabadu ka dhacdo la heshiimaana boogihii jiranaa oo sii baaba'ahayay baa nimankaan horta runtii soo qufahaya dhibaatada kale ugu weyn raba inaan dadka dareensiiyo xaafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xaafiiska madaxweyne ma lahan la taliyaal ma lahan protocol ma lahan madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha waxaa xukuma niman ragga la taliyaasha oo talada siinaya oo runtii ragga way aragsan ahaa marka waxaad moodaa dadkii waay aragga ahaa oo siyaasaddan aqoonta u lahaa ama talada siin lahaa inayba iskala weyiin horta albaabada ka xireen dhalinyaranahay maxaan ku faraynaa nin madaxad ninkii madaxadaa bay la dagaalamaya waxaan rabaa inaan shacabka si fiican ugu dhiirigeliyo aan u sheego dowladdii aadan caddoo rayidka ahayd anigu ma soo gaarin laakiin waxaan ku garaansaday oon wax ku bartay dowladdii kacaankii dowladdii maxamed siyaad barre ilaa dowladdii cabdullaahi yuusuf tii sheekh shariif tii xasan midaan waa jiro runtii xaqiiqda markaan ka hadlo anigu ma jecli inaan runta ka leexday qofkii runta igu naco horta runta igu naco waxa weeye ra'iisul wasaaraha hadda jooga iyo madaxweynaha hadda jooga xaqiiqan markaan ka hadlo ayana waa isku Soomaaliland way ogtahay waa ra'iisul wasaare iyo madaxweyne dalka soo maray horta kuwii horta ugu camalku xumaa ugu xanaaqa badnaa waa kuwii ugu tayada xumaa oo waxay qabtaan ugu tayada xumaa waa kuwii talada ay soo jeediyeen shacaan siyaasiyiinta talooda qaadan ayaan darada haysta waxa weeye kow waxay ka bilaabeen hebel seebel ila hadlo seebel waxaan ii weydiiyey midaas macnaheedu waxa weeye waxaan ku matalay caruuruhu markay banoona cayaarayaan ay isku farabaxsadaan oo feer isla aadaan waa isku xanaaqaan horey ka magaciisoobaan war madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan la baaqa joojiya handadaadan aad ku hawakacaysaan hebel baa iga fikir duwan ha la soo qabto hebel baa iga aqoon badan ha la soo qabto ha la soo xiro xilka ha laga qaado waad ogeydeen wixii tawaari lagu sameeyey baarlamaankii laba garab baa laga kala dhigay xaafiiskooda qof yacni aqoon u leh ama 40 gaaro siyaasad soo bartay midna laguma arko wiilal yar yaroo muxuu ahaa meelaha wasoo loo bigareeyay baa agtaa ku haya la taliyaha madaxweynaha dariiqada meelahaas liiday markaas wallahi baan ku dhacday ana Soomaali wax u qarinayo la taliyaasha madaxweynaha wax arkaysta oo dariiqada meelahaas inta taagan ku haya gabdhaha yarka ku shaqeeya la taliyaha madaxweynaha warse xaafis madaxweyne la taliyaha si uu shaacin kartaa halkaas waxa kaaga muuqda يعني كوارد حمادة يكملش حافيز ذيك مركز الدولة سعودة غميسة أو سياسيين البابا كحرتي أو ولا يريرهم محاها ولا الدولة فهذه وقت السبب حي كرة لنا هي ترى يصير يم بالمشاكل نكمل التقول كترى وبحنا هي حق واتاي وأوصل نقولنا أنت إنك بحن أرنتي أمنيجا هدر taliyihii ciidamada gurad baa qaylinaya oo dhahaya ciidamada xasaliinta kuwan militariga haleynina asbuucid ugu dambeeyay ciidamadii baa islaynaya marka iyaysan baabuurtooda wax ku buufisnayn iyaysan nambar lahayn iyaysan calaamado la isku garto oo kor laga garan kara lahayn maxaa ugu wacan marka isku dhaxayaan maamul bay islaayaan waxa ugu wacan waa hoggaan xumada dhankasta ka jirta oo ay adiga dawladda ka jirta boqol tuuto kala yaacayso oo aan bixid ka marqadan baa ولذا النبي سعود وطوطا قبتها وحي لها أنه قيبا كامر قادنا بوليسكي وحي كليا قيبا كامر قادنا بالترجمة وحي انت سو قيبات أو قيب أكرة تبرن أو قار لي محوها مريكن باتبرن قار لي فرنسيس باتبرن قار لي محوها مريكن بات وبقول عيدا أو كليا عشان كلامر قادم هدي الله مدح بناين لها عيدا مدن بالترجمة مجالة اللي قصار لها حريه بالترجمة الغورورين لها oo loo madax banaan lahaa taliyaha ciidamada xoogga loo madax banaanin lahaa wax badan baa hagaagi lahaa loo madax banaanin maayo magaalada waxaad arkaysaa boqolaal in qaasiya cusub meel ka socdaan aan la garanayn marka haddii sidaada baashaan quraanyada xayawaanka ama shimbiraha hoggaan bay leeyihiin hoggaan baa daba socda xabad baa orda xabadaasu hadday ka leexato meeshii ama quraanyada qolqolaysa ay ka leexato wixii kala shanta meel bay ku kala yaacayaan dalka hoggaankii madaxii hoggaanka dalku ka jiran yahay ilaa la saxo oo hay-adihii amniga sidii aqoontoodii loo kala dhiibo oo ururadii loo waxeeyo oo guutooyinkii xeryahoodii la geeyo oo Soomaalidu noqoto dad iyagu u madax bannaan oo aqoontii lagu geeyo oo laga daayo muxuu ahaa saaxiib iyo mid hadda jira la iska siiyay iyo
مثل إسكاسية الرئيس وحبا عن لوضو حتى هذا دلكم مدة هاي دلك دبعتها هاي ستا وحوي وحان ترين كاركتيري إذا بدي أكل مدح بنان بنك وحي ورم مدح الصور أرنتاس وعدها daawadayaal waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxa isku soo dubareeyay ustaad Muxyidiin Iryanuur Wadani oo Canada jooga waxaan martino ah xubin baarlamaankii sagaalaad ka mid ahayd oo dowladihii ka horeeyana madax ka ahaa hay'adda socdaalka haddana caan ka ah siyaasiyiinta xamar waa Cabdi Barre Yuusuf Jibriil oo aan iga baahnayn tacriif nin outspoken ah hadal yaqaana ah marka gaar haye oo golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dowladda guna kama qaadano gacan saarna lama leeyahay mucaaradka cid gooniyahana uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsinaan karaa laakiin danta guud waa mid gooriya ayaan gabagabada hadalku aan ku garownay gaar hayo iiga ilaali Cabdi Barre bal hadda waxaan u imaanaynaa dhinacii cadaaladda iyo garsoorka arrimahan ba hadda ka hadashay ma jirto maxkamad dastuuri ah guddigii hadda adeega garsoorka lama magacaabin marka xaaladda garsoorka iyo cadaaladdu waddanka xagee maraysaa horta dal sidiisa dal haddaan cadaaladu ka jirin horta weliga hore mar ma gaarayo sideedana dalka waxa laga baqaa waa cadaaladda waa sharciga laga baqaa waxaad moodaa sharcigii qof kasta madaxweyne ha ahaado ra'iisul wasaare ha ahaado taliye ciidan ha ahaado qof kasta baarlamaan ha ahaado horta qof kasta waxaa ka weyn sharcigaa ka weyn muhiimaddu waa sharcigii laga baqayay oo qof walba ka baqayay ma ahan in laga baqo muxuu ahaa taliye ciidan in laga baqo maahan ma ahan in laga baqo madaxweyne laga baqo maahan ma ahan nin saldhigjo in laga baqo maahan waxa laga baqayo oo ixtiraam mudnaanta kubada waa sharciga waxa laga baqayo waa sharcigii haddaynu ku tumano oo saan doonno u isticmaalana dowladu horta ma jirin runtii dalkan markaan ka soo kaco waxyaabihii aan sheegay qaybta labaad oo dalku ka socon waayey waa dhinacii garsoorka wey waa dhinacii muxuu ahaa maxkamadihii waxay noqdeen maalin kasta in la yidhaahdo sharci darro hebel baan geystay hebelna xilka baan ka qaaday oo aan qofku awood u lahayn guddiga garsoorka waxaa soo magacaaba guddiga garsoorka waxaa soo magacaabaya xeerar muxuu ahaa wasiirka cadaaladda nidaamkeedii lama marin waa 9 xubnood gudoomiyaha maxkamadda sare ku jira gudoomiyaha maxkamadda sare madaxweyne ma magacaabi karo waxyaabaha aynu ku khaladnay waa anaga baarlamaanka sagaal markaan ahayn ninkii hadda la bedelay gudoomiyaha maxkamadda sare wareegtaa lagu keenay khasab baa lagu keenay gudoomiyihii hore oo maxkamadda jooga xabad looga qaaday orod looga qaaday albaabkii laga xidhay xeer ilaalinta hadda joogta sidaas oo kale hadday taagan tahay aan sharcigii la fiirinayn oo nidaamkii dastuuriga ahaa aan la fiirinayn oo nin walba leeyahay ninkaan kaan rabaa jecaysanaya baan keenaya haddii adeer halkaa laguma noqon karo nidaam iyo dowliya laguma noqon karo hadda mid cusub baa saas kale fiirin madaxweyne wareegta ku keenay baarlamaan oranaya waxaana khaldan waxaan way sharci maahan dastuur baa lagu tuntay ma keeni ka wareegta kuma magacaabi kartid ma jiro baarlamaanka laftiga kala qaybsanayo qabiil u kala qaybsanayo dhibaatada ugu canna wax la yidhahdo 4.5 baarlamaankii la rabay inay iyagu waxaan hor istaagaan oo qabtaan oo yidhahdaan waxaan maaha sharci darro wey hadda iyaga waa kala qaybsanoo qaar xafiiska madaxweyne dhooban yihiin qaar waxay dhooban yihiin ra'iisul wasaare dhooban yihiin intii kale waa koox mucaarad oo bannaankaa taagan marka niman yahow dalku saad moodeen ma ahana dalkan wuxuu idinka baahan yahay ducuu idinka baahan yahay wuxuu idinka baahan yahay khaladaadka inaad ogaataan waxa khaldan inaad ogaataan maxkamadahan runtii anigu ma qarsho idaacadii hore waa ka oran jiray anigu ma aqaan maxkamadda ma aqaan waxaan xarunta ganacsiga aan u aqaanaa maxaa yeelay shacabkii baa kadeedmay hantidoodii baa la kadeeday dadkii guryahoodii baa mid waxaa looga dhaaranayaa cabdilla sideeye wasaarinta maanta yimaada lagaa jecel yahay oo adigii dukumentiga lahaa oo intaas wasano gurigaagii lahaa u imaanaya waxaa laga jecel yahay kan suuqa madow inta lagu samaysto adigii dukumentiga lahaa oo guriga iska lahaa dambi baa lagu yeelaya waxaa leeyahay tuug weeye hal xiro dukumentiga laga qada waa laga jeexjeexaya waa lagu xiraya cadaaladdu horta halkaasay maraysaa xageebay marka cadaaladda halkaa maraysaa xagdisee marka dal u dhismayaa marka waa in la helaa mid sidaan horey ciidamada usoo sheego kale
hay-adan garsoorka maxkamadda waa in loo helaa dad kow ilaahay horta ka baqahaya labo dad aqoonteed u leh oo maxkamadaha iyo shuruucda caalamka aqoon u leh oo bartay waxaan bartay aqoon u leh horta waa in la keenaa laakiin haddaad maalinta tirahdid hebel baa saaxiibkayo oo lagu soo loobingareeyo xataa haddii guddiga garsoorka hadda la keeno wax kale lagu keeni maayo saaxiib iyo 4.5 iyo ninkaana ixiga iyo intaasaa lagu keenaya laguma keenayo aqoon qofkaanu u leeyahay maxkamadda u leeyahay cadaaladdu meeshay ka aasaasay oo loo cararaya baa maanta laga cararaya waa wareer iyo ummadda lagu dhibaataynaya taasna waxaan leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay madaxweynuhu bishii sanadkii dhammaaday bishii May oo bishii shanaad oo sanadkii hore wuxuu ku dhawaaqay 9 casho gudahooda garsoor ku dhisaya weli lama dhisin dayladii iyo buuqii iyo dhibaatadii maxkamadda taagan maxkamadda haddaa tagtaan waad naxaystaan maanta waa lagu xirayaa markii lagu xiro maalin baad qof tirtay xabsi baa lagu geenaya shaada suur baa lagu sameeyay xabsi baa dalab lagu siinaya warnimayo dalkaanu dal baabay waa laakiin dalkan waxa ka maqan oo kaliya cadaaladii baa ka maqan waxa ka maqan leadershipkii waxaan kala hagi lahaa oo ummadaan maaragtay ku keenaa meeshii ka maqan cadaalad darradu intay socotana wax hagaagaya male 4.5 kan lagu cararaya anigu waxaan ka doorbiday dadka aqoontooda in lagu geeyo waayo arrimada lagu geeyo aqoonta u leeyihiin lagu geeyo marka waxyaabahaas oo dhan baa khaldan dalkan wuxuu u baahan yahay inaad u soo duceysaan u baahan yahay oo aan lagu fiirsan dhibkan dadka dibadaha jiraan waxaa la war dadkan saaxiibtinimo meel dhiga hebel maxaa wax looga sheegay halkan dhiga dalkaana ka dhaxeeya dalkan cadaalad in loo helo waa kow hoggaan talada qaadanaya in la helo waa labo amnigii sida loo sugi lahaa oo dadkii aqoonta in loo dhiibana waa saddex dee intaas qofkii ka soo horjeeda oo wax kala wata anigu waxaan arkaa niman Soomaaliya u taliyeen baan u arkaa anigu muhiimaddu waa saddexda qodob dalka in loo helo kow cadaalad loo helo oo cadaaladii laga soo bilaabo maxkamaddii laga soo bilaabo oo cadaaladii laga soo bilaabo madaxweynuhu cadaaladii xafiiska ka bilaabo oo waxa khaldan dadka siyaasadda kala tashado hay-adihii amniga in aqoontooda lagu geeyo oo amnaha lagu geeyo saddexda qodob haddaan culayska la saarin oo aynu ku shaqaysano hebel baa saaxiib alla ahay iyo hebel baa ii soo loobingareeyey haddee taladeenu waxay noqonaysaa hal bacad lagu sii noqonaysaa marka shacabka Soomaalida waxaan leeyahay war saaxiibtinimo iyo muxuu ahaa qabiil waxba inama tarayso dalku meel fog buu ku socdaa waxyaabo fara badan baan rabaa halkan haddaan waqtigeeda caawa aad uga sheego dalka waxa ka socda cidda wax ka qabanaysa nin ajnabi ku qaban maayo aynaga qabsan karna haddaynu maanta isu nimaadno oo gacmaha isaynu cadaalad daacad isku nahay oo qof halkan shakhsi jecel halkan iska dhigno oo dalkeena waa naga badan u soo jeesano wadan kugu soo xadgudbaya oo ku fargeynaya ma laakiin aynagii baa kala qaybsamay 100 wadan u shaqeeyana waa tahay cabdibare arrintan aan ku noqono garsoorka hadda saa sheegay maxkamaddii dastuurka ma jirto guddiga adeegana ma jiraan waxa hadda laga dhigay gudoomiyaha maxkamadda sare nin dhalinyaro ah oo maxkamad iyo case uu galay iyo aysan jirin marka xildhibaanadii hadda oo saaxiibada hore qaar ahaa xamar markii la joogo arrinta gudoomiyahan cusub maxaa ka tiraahdaan maxay ka leeyihiin horta arrinta gudoomiyaha hadda lamay waa sharci darro lagu magacaabo sideedaba sharci laguma magacaabin nidaam dastuuri laguma magacaabin rag baa u soo lomagreeyay madaxweynaha u keeno saasa lagu magacaabo waa sharci darradii qodobada la isku koobay ka mid maxkamadda dastuurigana waxay ahayd kow in la magacaabo 60 casho dawladdu markii la magacaabo yahay laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ma rabaan maxkamadda dastuuriga in la magacaabo ma rabaan maxaa yeelay way la xisaabtamayaan oo waa meeshii qaladku dhafsixi lahayd marka maxkamadda dastuuriga in la sameeyo horta midna ka fiirin arrintan hadda laftigeeda markii la magacaabay runtii baarlamaanku waa kala waa mucaarada iyo kuma iyadu leeyahay runtii aad baa la isku khilaafay kuwana waa soo dhaweeyeen kuwana waxay waxaan waa sharci darro marka anigu waxaan u arkay kuwa soo dhaweynaya anagoo waa ahaan jirnay waa rag maaragtay saaxiibtinimo iyo rag gaara madaxweynaha ka dhow ama ra'iisul wasaare ka dhow kuwaas oo maaragtay inay wax saxayaan talada saxda waxa saxaya ninka mucaaradka oo halkaa istaagay oo aan lagu shaqaysanayn oo muxuu ahaa danta ilaahay aan lagu fushanayn oo la war waxaana khaldan
ninkaas anu u arka inuu wax saxayo oo muwaadiyaan u arka marka arrintan hadda maxkamadda ka dhacday qof walba waa u jeedaa qof walbana indhihiisa macallin u ah maskaxdiisa macallin u ah marka waxa weeye waa khaladaadka maalin kasta dowladdu galayso ama madaxweyne ha galo ama ra'iisul wasaare ha galo ama mid kale ha gale khaladaadka la galayo qofkii dee khaladkaa fiirsanayo u sacabtumayo haddee soomaalida ma rabtida saaxiibtinima rabtaa saaxiibtinima dowladda uma noqdo waa tahay waxaan usoo gelaynaa hadda waxaa ka sharqamisay arrintii la taliyaasha madaxweynaha qolyaha mucaaradka inta badan fahad bay afka ku dhuftaan marka fahad say iskuma heli karaan labo inay dhahaan waa nin culus oo lacaga keena iyo sida muuqata fahad madaxweynihii hadday jarbubu ka tuurayo dimashin waxba lagama qaban oo maamul dowlad goboleedkii iskuma fiicnaa oo etoobiyaanka xataa ay qalbidagax u dhiibeen iskuma fiicnaa oo carabihii iyo muslimiinta iskuma fiicna marka mucaaradku hadday fahad say ka sheegeen run tahay mucaaradku waa jecel yahay inay dowladda bedelaan oo ay meesha ka baxdo marka fahad shaqadii ay ku imaan lahaayeen bay wadaane maxay u eedeynayaan marka kusoo dhowow horta waxaa fiican waxa la yidhahda horta danigu ma fiicno waa arkay dad badan oo fahad baa meesha xukuma iyo fahad baa dhibaatada horta le anugu horta in badan waa arka laakiin fahad horta la taliyo ma ahan brotocolna ma ahan waa agaasimihii madaxtooyada fahad wuxuu ku shaqeeyaa talada madaxweynuhu ku shaqeeyaa go-aan isagu iska leeyahay oo uu ku shaqeynayo ama uu ku magaciisanayo ma lahan horta dadka fahad caysanayo wax ka sheegayo horta fahad inta iska dhigtaan fahad madaxweynena ma ahan ra'iisul wasiirna ma ahan ra'iisul wasaarena ma ahan waa nin shaqaalaha oo shaqaaluhu xaafiska waa agaasimihii madaxtooyada awood uu waxaas ku qarribo ama uu dal ku baaba'asho ama madaxweyne uu ku amrana ma lahan horta dadka waa inay taa kala cadeen dadka in horta la iska jaa'ifeeyo oo la iska aflagado horta waa laga fiican yahay fahad intaad caysanaysaan fahad madaxweyne ma ahan ra'iisul wasaarena ma ahani war dadka taladu ka goodo fahad tala kama godo waa shaqaale xaafis fadhiye dadka taladu ka goodo oo aad ogtiin oo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyagaa wax qaribaya iyaga raadsade maxaa fahad u caysanaysaa fahad muxuu idinku sameeyey fahad madaxweyne ma ahan anigu qofka inaan eed ka gala maahan wuxuu jiraan ka sheega maahan dalkan taladiisa nin baa haya oo taladu ka gooda talada nin ka goda waa madaxweynaha marka madaxweynaha khaladkiisa tilmaama ra'iisul wasaaraha khaladkiisa tilmaama waa tala toosin waxaasoo dhan laakiin nin maskiin oo waxbaan galabsan haddaad tirahda fahad baa saa sameeyey haddii halkaa waxaad ka aad ka aragteen oo madaxweyne bay caayayaan oo ay leeyihin madaxweynuhu waaba nin u taliya macnaheedu weeye oo nin baa iska haysta macnaheedu weeye oo gadaal fadhiya marka madaxweynaha saa ha u dhibaataynina leeyahay dhibaatada intayna gaarsiinina laakiin madaxweynaha toosiyo khalad kastoo dalkan ka dhaca madaxweynuhu asagaa sharciga asaga ilaalinaya dalkan asaga halistiisii laga rabaa asaga iyo taliyaashiisa qiimaha le rag qiima inuu keensada laga rabaa oo ay wax la taliyaan oo dalkan ay hagaan oo khaladaadka maalin kasta dhacaya ay ka celiyaan marka waxa weeye anigu waxaan u arkaa fahad dadka iska cayrsanayo inta iska aflagaadaynaya inay ninkaa faraha ka qaada ninkaa waa shaqaale awood intaas leegna ma lahan madaxweynena inta uu tagoramay madaxweyne taladaasaan iyo talada qaad ma oran karo mana uu samayn karo marka waddadu meesha jirta qaadee nimaan waxba ayna caysanin taasaan midaas kale waa tahay daawadayaal waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdulwaaxid cabdullaahi khaliif waxaa isku soo dabriday ustaad muxyidiin diiriyan nuur wadani oo canada jooga waxaa caawa marti noo ah xubin ka mid a xildhibaankii sagaalaad baarlamaankii sagaalaad cabdibare yuusuf jibriil horena dowladda cabdullaahi yuusuf ooga ahaa ku-xigeenka hay-adda socdaalka haddana xamar siyaasi laga yaqaan ah oo caan ah oo aan iga baahnayn tacriif gaar haye waa golahaas gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dowladda kuna kama qaadano gacansaarna mucaarad kalama lihin cid gooniyana kuma xirin fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa laakiin danta guud waa mid gooniya ayaan gabagabada hadalku waanu kuu garownaya gaar haye ugayiga ilaali marka sheergareeya la wadaaga walaalihiin waxaa idiin keenaa labeentii soomaalida oo culimmadii iyo dhaqaatiirtii iyo aqoon-yahanadii maadiga ahaa iyo siyaasiyiintii ugu caansanayd sida cabdibare oo kale iyo hal abuuradii iyo hooballadii marka isgaarsiiya cabdibare hadda shirkii baydhabo looga hadlayay arrimaha amniga dowlado badan baa usoo taagnayd saa hadda sheegtay
maxaad arrintaa ka leedahay iyada marka horta shirkan baydhabo waxaa ka horreeyey way fiican tahay in inta la shiro maamul goboleedyada dagaalka laga daayo burburinta laga daayo haddii aan maamul goboleedyadii iyo madaxdii federaalka iyo siyaasiyiintii ayna isla jaan qaadin oo qolod tiraahdo tayada keliya hala raaco horta dhibkeeda ay leedahay dalkan waa dal burburay aad u burburay waa dad aad u kala tegey dadkii waa isu soo dhowaanayaan wax walba waxay u baahan yihiin turxaan bixin baa loo baahan yahay turxaan bixinta ayaa laga rabaa wax kasta inay tanaasul sameeyaan oo ay miiska qof walba u fadhiistaan horta madaxweynaha laga rabaa iyo ra'iisul wasaare shirkan waxaa malayay inuu yahay kii afraad inuu yahay 3 shir hore xamar ka dhacday kii u dambeeyay December buu ka dhacay December waa xamar ka dhacay waxyaabihii lagu heshiiyey oo lagu wada hadlay ilaa hadda wax ka qabsoomay 3 shir hore ma jiraan xagga ciidamada isku dhafka ha noqoto xagga amniga sidii loo sugaa ha noqoto xagga wada shaqaynta maamuladii iyo dowladda dhexe ha noqoto dhaqaalihii lagu kabi lahaa dowladaha federaalka xubnaha ka ah maamul goboleedyada ha ahaato haba yaraatee wax hirgalay midna ma lahan hadda waad ogeydeen iyadoo la kala taagan yahay oo muxuu ahaa maamuladii aad u dhaliileen dowladda u dhaliileen oo shir baydhabo lagu qaban jiray hadda bishii October lagu qabtay oo ay leeyihiin dowladdii wadadii laga rabay way ka leexatay aan toosino waad ogeydeen arrintaa marka shirkan baydhabo anigu waxaan qaabka hadda loo qabtay anigu ma jeclaysan maxaa yeelay waa la kala taagan yahay maamuladu waxbay tabanayaan faragelin dowladda dhexe ka tabanayaan madaxadeeg dowladda dhexe ka tabanayaan intaan shirkan la bixin in la turxaan bixiya yahay oo horay turxaan bixis loo jeedo wuxuu la isdhaafsado ama xamar ama la isku martiqaadimo gobolada ay tagaan oo maamulada ay la soo shiraan shirkii dowladda dhexe laga tabanayay oo taagan oo aan la xallin baaliyo shirkii amnigan ka hadlaynaa marka shirkaanu kama duwanaan doono tirarkii hore kama duwanaan doono shirkan waxa weeye macnihiisu waxa weeye aynagoo gacmaha haysan aynu shirka Brussels oo dhaqaalaha Soomaaliya lagu yaanu aadno aan gacmaha haysano laakiin wali mar haddii laga tabanayo dowladda dhexe qandhuufooyin badan laga tabanayo oo 4 shir hore oo dhacay oo sanadkii hadda dhamaaday 4 shir hore dhacay waxyaabo badan laga hadlay ayna dhicin oo waliba anigu aan ku eedeynayo inayna hawshaas ka soo bixin dowladda dhexe dowladda federaalka mas'uuliyiinta ay arunta ay galeen aan aad uga bixinayo aan aaminsanahay haddana shirkan waa anigu waa jeclahay wax wanaagsan oo la isku afkartay inay ka soo baxaan laakiin xaqiiqda markaan ka hadlo inaan shirka wax kasta oo la saxo ka soo baxa dhinaca maamul goboleedyada way ka soconaysaa laakiin waxayna ka soconayn dhinacii dowladda dhexe mas'uuliyiinteena ka soconayn bayna ka soconayn waa tahay amni baa hadda laga hadlayaa dib u heshiisiintii lamaba taabanba hadda galmudug waad arkaysaa hadda waxaa qaylinaya madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka marka madaxweynuhu waa tuu mar arrinta galay oo dhuusamareeb xataa waa tuu tegey waa tuu xamar ugu yeeray marka maxay tahay mar haddaama dadkii la heshiisiin amniga laga hadlayo horta waa garay inaan su'aal fiican inaan ku xasuusiyo nimankan waxa u meelay inay ka faashadeen nin madax cad ma arki karaan raggii madaxa cadda waxa ka haray xaf baa ka haray horta raggii madaxa cadda oo halkaas wax uga arkeen waa run sidaad sheegtay mar haddii maamuladii kala taagan yihiin oo maamuladii qaska jiro oo dhibaato ka taagan tahay amni laga shiraabo iska yarba maxaa yeelay galmudug waa aragtay meeshii marayso meeshii la gaarsiiyey Jubbaland waa ogtahay wixii qaylo ka baxayay Puntland laftigeeda muxuu ahaa dagaal hoos oo kale waxa ku socdo maaragtay rag badan oo halkaan laga diyaarshay oo hotel haddana meelahan qaar jiifaan oo la yiri muxuu soo qasta aniga maalintii madaxweynaha igu dambeysay waxaan madaxweynaha dalkan dal dhisan baa timid waxaa timid muxuu ahaa maamul goboleed dhisan dowlad dhisan baa lagu wareegay shakhsi wixii aan laga kala tabanayo waa goorida ka wada laakiin maamul dhisan faragelinta laga dayo yaan la caburin yaan la burburin laakiin horta talada cidii qaadanaysa ilaa horta maskaxda ha waafajiyeen marka maba garan karaba sidaad sheegtay maamuladii oo kala taagan oo dacwo badan dowladda ka taban oo khaladaad badan soo baxeen daawadayaal waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanaya istuudiyahayaga magaalada London waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxaa isku soo dibariday al-ustaad Muxyidiin Diiriye Nuur Wadani oo Kanada jooga Cabdi ku soo noqo wad meeshii ka wad
ود نود marka uu soo noqonayaa xildhibaanku marka wuxuu marayay arrimihii dib u heshiisiinta waa isagii lahaa hadda wuxuu leeyahay dowladdii qof madaxa cadba waa ka cararaysaa marka cabdibare may maqashaa si fiican marka marka dee haddii mar maamuladiisa amni laga hadlaaba horta iska yarba amniga waxaa ka horreeya waa horey waataan u sheegay shirka hadda amniga laga hadlayo isuutaga waxaa ka horreeyey waxyaabaha dowladda dhexe laga tabanayo in laga wada hadlo yahay oo laga wada hadlo oo dowladda dhexe waxa faragelinta ay maamulada ku hayso ay yidhahdeen war faragelintaan lagu haysa ay naga joojiye dee tiyo aan laga wada hadlin in la yidhahdo amni aan ka wada hadalno oo inagoo midaysa aan brussels tagno dee taas muxuu ahaa ma oran karo maaragtay amni baa lagu sugaya amniga wadadeedii loo mari lahaa lama marin maamuladii wax la qaybinaya iyagii baa lagu taagay oo laga dhigaya maaragtay la faganaya marka dhambaalka kale aan madaxda sare oo dowladda u diraya waxa weeye war ragga madaxa cad oo aad la dagaalamaysaan waa ragga talada ka qaadan lahaydeen waa raggii waayo aragana ka faa'iidaysan lahaydeen wiil yaroo hadda soo ordada hoosta soo gashatay tale kugu siyaadin mahaye waxaan leeyahay ragga madaxa cad oo aqoonta leh oo waayo aragnimada leh oo dowladnimada yaqaan ka faa'iidaysta oo waxa idin tababareen oo idinku laftigiinu gara qaata hal sano iyo 7 bilood bishii 18 baa hadda socota wax la taaban karo oo la oran karo nimankaanu waa qabteen oo ay dalkii ka qabteen in la isa sii qabsado in siyaasiyiintii madaxa lala galo waxyaabo badan baa sii khaldamaya waxaan moodaa dalkii gadaal inuu sii soconayo marka arrintaas anigu waxaan u arkaa shirka Baydhabo waan jeclaan lahaa wax aad u qurux badan inay ka soo baxaan wixii ka soo baxana waxaan ku boorinayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha idinka hay'ad dalka u sareeyay dhabeeya oo waxa aad dadka kula heshiisaan ka rumeeya oo afkiina waxaad ka ilaalinaysan kelmadda beenta ka ilaaliya waxa weeye taariikhda adduunka ma dhicin Soomaaliya ma aaminayso nin been maalin kasta dadka ku maaweelinaya Soomaaliya maanta been uma baahna Soomaaliya maanta uma baahna muxuu xayeysiin gaar uma baahna Soomaaliya uma baahna hadal joogta uma baahna Soomaaliya waxay u baahan tahay in wax qabad dhaba shacabkan loo tuso shacabkan dhibaataysan meeshii biyo nadiif loo sameyn lahaa meeshii caafimaad loo sameyn lahaa meeshii dadkan masaakiinta amnigooda la sugi lahaa waxa lagu mashquulsan yahay oo nimankan ku mashquuleen hebel baa iga fikrad duwan iga qabo aan soo qabanno hebel baa aqoon badan aan indhaha ku soo dhifanno macnaheedu taas waxay ku socdaan meel hadda aan hadda tilmaanteeda aan ciido garan karin oo loo bin siyaasado 2020 nimankan u cararaya war hadda 2020 ka u cararee horta soo dalkii inaad wax u qabatay soo maahan abaara iyo fatahaad baa dhacaya wufuud caalami oo dalka loo diri maayo la soo qaybsan mahayaan dalkan waxa hadda iig diiwaan gashan dhacdooyin dhacay intii madaxweyne farmaajo kooda in ka badan 45 dhacda ka baa dhacday cid mas'uul oo ka hadashay madaxweynahan ka hadlin ra'iisul wasaarahan ka hadlin xildhibaan baan ka hadlin intaas anaa ka hadlay war waxaan dhacay wax laga qabto nimayo waxaan moodaa dalkaba in maxaa ahaa meel kale laga maamulayo moodaayo maaragtay gacan kale ku jirtee war dalkan amnigiisu wuxuu u baahan yahay aqoon iyo waayo aragnimo u baahan yahay dulqaad buu u baahan yahay dadkan sidii maaragtay la isu keenay u baahan yahay sidii biyo nadiif loogu raadin lahaa buu u baahan yahay caafimaad iyo waxbarasho intaas lacag la'aan in loo sameeyo loo baahan yahay iska hadal iyo dowdow iyo isqabqabsi waxba inoo tari mayso inta dalkan haddaan loo samaynin haddaan dulqaad aynaan isu samayn haddaynan isu soo dhawaanin waxyaabo badan baa ina kasii halaabahaya marka qof walba waxa laga rabaa meeshiisa inuu meesha ka saaro nin jeclaysi iyo hebel baa saaxiib ku ah iyo hebel baa ku xiga meesha ha laga saaro laakiin runta waa in farta lagu fiiqaa haddaan maanta anigu runta ka leexdo oo dowladda anigu ku dhex jeerada waa fiican tahay barwaaqay qabatay kanay qabatay oo aan khaladkii sheegin ilaahayna khalad baan ka galo dambi baan ka galo been baan sheegay shacabkii Soomaaliyeedna khaladkii ku dhacay iyo dhibaatadii ku dhacaysa waxa baa loo qariyay intaas la igu imaan maayo anigu qofna mucaarad ku ahayn ra'iisul wasaarana mucaarad ku ahayn laakiin waa inaan sheegaa xaqiiqda dhabta dalkaanu meeshuu ka socon leeyahay iyo meesha loo wado inuu ka socon waayo anigu intaasaan rabaa inaan amniga aan ku soo koobo dalkan amnigiisu meel xun buu joogaa dib dalka in loo cisho maahan
laba arrimood ba waxa ku leeyahay horta miyaada baqaynoo hadda qofkii siyaasiyiinta hadda waddanka dad badan oo siyaasiyiin ah oo ciidamo beelad u joogaan oo ganacsato badan ku leh baa horta khatar la geliyey marka adigu kow miyaada naftaada u baqayn lambar labo maxaad ka ogtihiin hadda dhalintan qofkii hadlaba af goosanaya oo hadda qaar badan oo naqaan oo magacyadoodii iyo deegaanka ka soo jeedaan oo baa shaksi ahaanba wax u taageeraya marka waxaysan kala aqoon dadka ma kala yaqaanaan waa iska baaley baa anugu qaar u aqaanaayo mar dhan baan ka hadli doonaa marka maba garan karaan qofka waxa lagu dayo iyo dacaayadda iyo marka dhalinyaradaas iyo maxaad ka leedahay miyaasa naftaada u baqayn adigu horta dadkan wax dilaya anigu hadda cid caawa aan gaar oo aan ku eedeynayo oo aan leeyahay qole hebel dishay horta anigu ma garan karo maxaa yeelay dal iska dilahayo 24 kaas macna daro lagu dilahayo cid hadda aan ku eedayo target gaar horta aan ku eedeynayo horta ma jirto horta taas mid dilalka kale yahay waxa sababta ugu wacna waxa weeye in qofka maalinta la iska dilo qofkii wax la dilahayay aan la soo qabanaynin waa tayaxumada hay'adaha amniga weeye hay'adaha amniga waxaan leeyahay si isbedel loo sameeyo hay'adaha amniga hal la tayeeyo oo aqoontoodii iyo wixii aqoon u lahaa bal isbedel horta lagu sameeyo oo niman yahow waxaan leeyahay nimanka mas'uuliyiinta waxaan leeyahay naga daaya nin jeclaysiga iyo nin inta la idin kala yaad haddaad hebel u dhiibin muxuu kalsoonidan kaa noqon haya iyo baarlamaan baa mooshin kaa keenaya horta madaxda sare waxaan leeyahay taa naga daayo war dalka hadda rabtay in amnigu soo aago horta aqoontii ugu dhiibi midda waxa ii soo hartay miyaada baqayn hadda waxa weeye qofka bilaadanka horta har mar buu dhimanaya aniga haddii laygula dagaalamayo ama laygu dilayo maxaa runta u sheegta hadde nimanka hadda dadka ku hawa kacayo maaragtay qofkii hadlaba waa naga fikri duwan yahay la soo xiro guriga ha la igu soo dhaco dee hadda waxaan leeyahay aniga xaqiiqda sheegay dhabtaan ka hadlay haddaad xadiidan tihiin maxaa hebel xaqiiq u leeyahay hal arrin baa aydan dulqaad u lahayn oo aydan waxa khaladaadkiin aydan toose aydan dulqaad u lahayn anigu waxaan leeyahay taa dowladnimo nomarqade dulqaad haddaydan lahayn waddanka iska banayo iscasila oo dad dulqaad leh dalkan hogaaminaya hala doorto anigu waxa weeye qofna kuma xadgudbahayo qofna ma aflagaadaynayo laakiin xaqiiqda dhabtaa oo dalkan sheegaya waa tilmaamaya xaqiiqda dhabtaa kii aan rabinow haddee dal ma xukumi karto hoggaanna ma noqon kartide sidii jiirkii ha soo kogine dalka waa lagula leeyahay haddaad waxaad qarribaysay waa in lagaa toosiyaa haddaad horumar gaarsiinaysay waa lagu leeyahay horumar baad gaarsiisay horumarkii waa lagula shaqaynayaa marka waxaan leeyahay war hadda idinku celaya war siyaasiyiinta aad caburinaysaan oo aan taariikhda dhicin oo aan Soomaaliya ka dhicin oo aad caburinaysaan horta joojiye qofka aqoonyahanka ah oo timaha cadow aad maaragtay aad leedihiin timaha cadow waxbuu fahmayaa naga qabtana ka joojiye marka baqdinta soo hartay baqdintu adeer ilaahay maalin baa qofku dhimanaya dee haddii qofka runta lagu dilayo run buu sheegay la soo kharajiyo haddii halkaa waxa ka iman kara inagu ogaan kartaan markaas marka arrin orgugu markaa waxay noqonaysaa orgugu baroordiyada ka weyne arrimo kale culus baa jira markaan baan filayaa waa tahay arrintii garsoorkan wax kaga noqonaynaa bari hore waxaa laga wada dacwooday gudoomiyaha maxkamadda sare xeeralyaha guud iyo kan gobolka banaadir rafcaanka ma laga yaabaa tacaddi badan baa jira marka xeeralyihii maxaa looga reebay ma salfanaysaa mise ninkan keliya uun meesha gudoomiyaha keliya la keenay meesha wallaahi waxaad intaad ka taliso intaa sheegayso dhan waa isma dhaantay dhashood weeye meesha waxa ka jira horaan uga sharaxa ama xeeraalin ha ahaato ama gudoomiye maxkamad gobol banaadir ha ahaato ama misr ha ahaato waxaas oo dhan horaan u soo sharaxay waxay samaynayaan iyo dhibaatada maxkamadda ka jirtan ilaahayna way og yahay ummadda joogtaana way og tahay marka bal waa sugaynaa bal maalmahan inuu ayana sidoo kale wareegto ugu soo saaro haddaan mar garsoorkii guddigii garsoorka uusan dhisnayn oo guddigii garsoorka aan la magacaabayn dee barrina xeeraalyaha hadduu rabo wareegtaha ku cayriyo maalinta xigtana gudoomiyaha maxkamadda gobolka madda wareegtaha ku cayriyo waa meeshaadi joogo waa nin jeclaysi markaa ii keen marka waxaa fiican inta maalin kasta nin jeclaysi aad ku keensanaysid oo mid wasiir mid kuu keenayo oo ra'iisul wasaare mid kuu keenayo oo oday mid kuu keenayo horta halkaas inta saa la samaynayo waa qaranjab dalkii ku dhacaysa iyo dib u dhac waxaa fiican maxkamad sare ha ahaado gudoomiye maxkamad sare ha ahaado garsoor ha ahaado in nidaamkii imtixaanka inta la qaado lagu soo xulo oo lagu keeno oo wasaaradda cadaaladda soo gudbiso golaha wasiirada loo soo gudbiyo
baarlamaanka loo soo gudbiyo aqoontooda la kontrolo sidaas lagu yimaado waa mid nidaamka ku imaanaya rasmiga taas weeye laakiin waxaad ogaataan inta linjeclaysi meesha lagu keenayo nooc doona ha ahaado maxkamad ha ahaado taliyaal ciidan ha ahaado wasiir ha ahaado linjeclaysi inta dalka qof lagu keenayo oo la leeyahay hebel baa fiican oo aan la hadlayno waxayna ka sheegayeen oo soo qabo oo dalkiisa lagu soo celcelinayo maxkamad maahane wax hagaagaya iyo wax soconaya midna ma jirto taasaan shacabka Soomaaliyeed u cadeynaya dhibka waxa keenay waa 4.5 iyo nin jeclaysi hebel baa fiican meesha inooge hebel baa danayna inoo fulayeen meesha inooge dalka taasa ka socota midda ka socota dalka taas weeye taasuna ilaa laga leexdo la joojiyo waxba horumar lama gaarayo waa tahay daawadayaal waa showgi gaar haye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigu ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxa isku soo dubirday Maxaydiin Diryanoor wadani oo Canada jooga waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dawladda guna kama qaadano mucaaradkana gacasaar raba lihiin cid gooni ahna uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsinaan karaa laakiin danta guud waa mid goori ayaan gabagabada hadalku aan ku garownay gaar hayo gayiga ilaali Cabdi Barre waxa martino ah xildhibaankii baarlamaankii sagaalaad siyaasi caan ah hadda xamarna aad looga yaqaanay Soomaaliya oo aan iga baahnayn inaan iskiin baro Cabdi Barre gabagabadii barnaamijka joognaa Xasan Sheekh arrintii murankii badda sida uu wasiirkiisii markaas arrimaha dibadda u ahaa Bayle uu qiray dadaal badan buu gashay maxkamaddii waa tii Kenya tiri maxkamadda adduunku hawshan hawl talma ah aniga Soomaaliya noo taala dadaal badan baa la gashay waa lagu guuleystay nin waxa taa siyaasi oo ilaa dawladda Cabdullaahi iyo xiriir badan la leh hay'adaha waddanka jira arrintii marka hadda dagaalkii haddu bilaaban lahaa warqadii Soomaaliya waa inay celisaan rabay 18 Juun bishan 18keeda annaga marka ma aragno wax dadaal oo dawladdu wado marka arrintaas waxa khabar ma ka haysaa horta runtii waxyaabaha madaxweyne Xasan Sheekh uu horta runtii aad oo kariid ku yeeshay waxay arrinta badda yahay oo runtii uu xil iska saaray oo looyaro aad u far badan oo qabtay taas qofka waxyaabaha qofka qabtay horta in lagu jaysay in maaragtay lagu dhibaateeyo maahan oo lagu magaciisoobo nimankan hadda waxaad moodaa wali arrintii badda inayna kala jeclayn oo ayna dhagba jala u siinayn oo ayna kaba hadlayn oo wax ka hadlay aad arkaynin tii xuduudda oo buulaha waad aragtay cid ka hadashay iyo cid soo hadal qaaday midna ma jirin marka waxyaabaha hadda aan baarista ku hayo oo anagu aqoonyahan badan hadda aanu rabno inaanu dhawaan soo shaacinay ka mid tahay marka arrintaas badda iyo tan xuduudda laftigeedaba intaba muxuu ahaa raad baanu ku haynaa waxaa mucjisada aad u weyn oo dawladda ka dhex jirta oo mas-uuliyiin dalka ugu sarreysa ay ka siman yihiin dalka dhibaato far badan baa ka dhacday ilaa dhowr iyo 50 qodob oo aan rabo waa dhow saxaafadda in usoo bandhiga ka dhacday oo arrinta baddu ka mid tahay oo arrinta xuduuddu ka mid tahay oo dhibaato far badan dalkan soo martay ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay dhiibistii qalbi dhagax ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay weerarro aad u culus oo siyaasiyiin lagu qaaday ay ka mid tahay oo aad u tiro badan dhibaato badan qaraxyo badan oo dad badan ku dhinteen haddii dadkii ka hadlaa hadday aaminsan yihiin afka xanca u saarantay ayna hadlaynin adeer u seel yeelaa marka soo in siyaasiyiintii hadlaan soo inaanu hadalno waxaan ugu kalifay oo khaladaad ka dhacay aanu soo bandhigno mar haddii mas'uuliyiin dalka ugu sarreysay ayna hadlaynin oo dalka wax ka dhacay ayna hadlayn oo shacabkii Soomaaliya ayna la qaybsanayn wixii dalka ka dhacay ayna la qaybsanayn dee dadka siyaasiyiinta inay hadlaan oo yiraahdaan war waxaana socda dee waajib bay ugu tahay marka aw nimankan waxaan baxshay ma hadlayaal baa u baxshay ma hadlaanba kaliya waxay waa aamusan yihiin qanuufay hoos ka wadaan maamul gobol bay hoos kala dagaalamayaan siyaasiga bay hoos kala dagaalamayaan ma hadlayaan dalka dhibaatada ka dhacday kama hadlayaan maalin kasta intaas la dilaya qof baa la dilaya video baa la iska tuubaya madaxweyne inta fagaaraha yimaado oran war waxaan xagee ka socdaan male ra'iisul wasaare inta fagaaraha yimaado oran war waxaan xagee ka socdaan male oo dadkii la qaybsanaya muxuu ahaa dhibaatada ka socda la qaybsanaya maahan dad iska aamusan oo aad moodo afka sharootay hadday shacabkii la hadli waayeen oo dalka waxa ku waayeen dalka ka ahaato oo dhan mar haddii mas'uuliyiintii dalku ka hadli weyday
adeer inaanu ka hadalno aanu soo bandhigno oo shacabka aanu la wadaagno waxa dalka ka socda waajib bay nagu tahay xil baana naga saaran waa tahay gabagabadii dad badan waxay aaminsan yihiin adigu aad ku jirta xataa in dowladda shariifka oo kale maaweela loo wadaa sidii loo oran jiray khariidadii dariiqa road mapkii oo kale xasan oo kale vision 2016 kii oo kale hadda dowladdan maxamed cabdullaahi farmaajo national security architecture marka dad badan baa waxay u qabaan haddeerna iska halhays weeyaan oo waddamadan beesha caalamka soomaaliya danbay ka leedo waa iska maaweelanaysaa arrintaas maxaa ka leedahay midda kale adigu xisbiye ku jirtaa oo ku beeraysaa nolol iyo nabad mise qolyahaas kale xisbiyadaas kale aad ku beeraysaa mustaqbalka marka taas loogu soo xir su-aashaas insha allah horta arrinta roadmarka ka sheekeynaya arrinta roadmarka horta dowladdaanu waxay ka baxday kumeel gaarkii bay ka baxday in siyaalo kale loola xisaabtamo oo qaladaadkeeda looga xisaabtamo oo ama dhaqaalihii laga joojiyo oo dhinacii dhaqaalaha aad looga joojiyo xiriirkii caalamiga xoogaa laga gaabiyo hankii lalahaa caalamku ay ka gaabiyaan taa waa dhici kartaa laakiin horta roadman lagu soo rogayo horta midna mala maxaa yeelay dowladdaanu waxay ka baxday kumeel gaarkii caalamkii kursigeedii bannaanaa 22 sano waa ku soo noqdeen horta taa dadku waa inay fahmaan waxa ii soo haray qoladan nabad iyo nolol baa horta ii soo baxay hortan ereyga nabad iyo nolol sidiisa qofku waa inuu ogaadaa intaasoo sano noolaa nabad buu ku soo noolaa ilaahay baa soo irsaaqay irsaaqad buu ku soo noolaa nabad iyo nolol macnaheedu waxa weeye waxay imaan kartaa dadka shacabka ah oo qofka nolol iyo la baxay dalka markuu gaarsiiyo horumar iyo barwaaqo markuu gaarsiiyo markii laga saaro dhibaatada dalkan laga saaro maaragtay dadkii waxbarashadan dadkan aan ka waxbarashadii maaragtay la gacantu free laga dhigo biyo nadiif ah loo waxeeyo sidii dawladii hore maaragtay wax kasta oo free inay helaan bay horta ahayd boqolaalkan qof oo tuugsanayso dariiqada dhawan noloshoodii la dabaro meel la dejiyo dadkii wada simnaan horta dad siman oo isu diyaarsan baa nolol iyo nabad horta la yiraahdaa nimankaanu dad dhalinyaro ah oo maaragtay soo barbaaray 91kii wixii ka dambeeyay dhashay oo dawladnimo aan soo arag oo ay maskaxda ka cuneen oo ay muxuu ahaa kaliya ka adag cay iyo aflagaado iyo hebel hal lacay kaliya ka adag bay horta nimankaanu heloodeen dawladnimona cay laguma noqdo dawladnimo Facebook laguma noqdo dawladna social media laguma noqdo marka anigu nabad iyo nolol horena uguma biirin tala badan baan siin jiray hadda shacabka Soomaaliyeed iyo anigu waxaan u naqaanaa 17 bilood bishii 18 u gashay waxa shacabka Soomaaliyeed maanta 80% u yaqaanaan qob iyo qaylo bay u yaqaanaan maxaa yeelay 17 bilood hebel ku bood hebel soo xir hebel baa timcada xilka ka qaad siyaasi baa nala hadlaya muxuu ahaa soo afjaro hala soo xiro intaas horta bay ka adag yihiin intaas baa loogu baxshay qob iyo qaylo loogu bixiyay qof maanta oran kara horumar yar oo la taaban karay gaareen waa midka mushaarka qaato wallahi nabad iyo nolol baa mushaar baan qaatay dhibaatada iyo musuqmaasuqa iyo corruption socday ha sheegin warkeeda sheegin baarlamaankii baa la kala qaybiyay aqoonyahan baa la dagaalamay hadee taas nabad iyo nolol laguma gaarin nabad iyo nolol waxay ahayd inay beeska ka soo bilaabaan dadkii u fariistaan muxuu ahaa magaaladan xamar waad aragtay roob yar markuu doo meel la mara ma leh qashinkii baa meel kasta yaalla wadooyinka baa biyihii xireen ma waxaasa nabad iyo nolol lagu noqday mise nabad iyo nolol waa iska sheegasho waa iska magaciisii marka hada dadka lagu maaweeyay laga daaya caawa shacabka Soomaaliyeed waxa idin sheegaya caawa waxa idin sheegay xaqiiqdii dhabta ahayd oo dalka ka jirta idin sheegay horena waa idin ku sheegay mucaarad ma yihi madaxweynuhu waa saaxiibkay ra'iisul wasaaraha saaxiibaanay markasta ba uu waa saragnaa intaan hadda sheegayna gidi talada waa siiya waxa warwadadaan aad ku socotaa kaliya waxa harsanayd inaan media u soo bandhigo qaladaadka dhacay nimankan wadada ay ku socdaan inay muxuu ahaa ismaba ogaba meeshay marayaan marka waxaan leeyahay aan halkay ku soo gabagabeynaya shacabka Soomaaliyeedow dawladnimadan inaynu aasaaskeenu lahayn hadaa rabtaan ilaahay baa idinku dharshay waxaad iska daysaan shakhsi jacayl iska daaye reehebel iska daaye shakhsi jacayl waxa uu tirimaayeen barru meesha ka tagaya madaxweynaha farmaajo dawladda isan baa lagu wareejiyay barru ka tagaya xumaantii uu keensado iyo wanaag uu keensado iyo burburka say raacaysa idinka idin raaci mayso yaan loo haqal taagin Facebook dhowr boqol loogu diro naxayaysi barri haday tagaan yaa idin xayaysiinaya marka waxaan leeyahay dalkan xayaysiin uma baahna wax qabad dhab u baahan yahay shacabka in la isku keeno u baahan yahay
shacabka in wax loo qabto u baahan yahay shacabkan wuxuu u baahan yahay wadooyin fiican in loo dhisto in maaragtay mas'uulo fiican oo biyuhu godadkii loo qodo u baahan yahay caafimaad buu u baahan yahay waxbarasho u baahan yahay nabad buu u baahan yahay horumar buu u baahan yahay hadda intaas nimaan samaynayno iska hadlahaya see ku taageeraysaa marka see horumar u gaaraysaa marka haddaynaan runta isu sheegin oo xaqiiqda isu sheegin oo dalka waxa ka jira aynaan boogtiisa taaban ma wax mise wax anigu waxaan inta ugu hadlahayaa oo aan runta u sheegayaa ismali ma oranayo haddaad maanta la hadasho wax yar sheegtay arrimaad kursi weydaa arrimaad jagad lagu diidaa adeer jagana uma socdo kursina ma rabo jagada aniga aan rabo waxa weeye oo aan ku faanahayo oo aan rabo inaan qabsado dalkaasoo nabadaha jagaya ah dalkaasoo nabadaho amni qaataan nolol ii ah dalkaasoo aan xorriyad u socdaan nabad iyo nolol ii ah nabad iyo nolosha lagu sheegaya waa intaas nabad iyo nolol meeshaan ma taala ay ku hadaaqayaan habeenka ugu yar intaas qof baa la dilahayaa ma dilkii baa nabad iyo nolol marka noqday nabad iyo nolol anigu nimankaan hadda ay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha magaca nabad iyo nolol aan sheego waa iska tirtiri lahaaba maxaa yeelay habeenka ugu yar intaas qof baa la dilahayaa galabta dambaysaa dad la laayay nabad iyo nolol marka xagee taala nabadda xagee taala habeenka hooya gablamayso aabba gablamahayo gabar masaakiin asay saaranayso marka dadka khayaaliga ha laga daayo yaan dadka been loo sheegin war dadka runta ha loo sheego bal ummadda inta dhex martaan qof runta saa u sheegaya idinku arka maanta arka anigu ninna mucaarad kuma ihi ninna gaar kursigiisa uma haysto madaxweyne farmaajaana ku haysan madaxweyne xasan sheekh baana ku haysan kursi baan ugu xanaaqsanayn waxaan ugu xanaaqsanahay waxa weeye wixii loo idmaday baa gees la mara faanka iyo fudeedka iyo hadallada macnadarrada hala joojiyo anigu intaan sheegaya waa intaas weeye aad iyo aad baad u mahadsantay aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa yacni xildhibaan hore baarlamaankii sagaalaad dowladihii ka horreeyana madax ka soo ahaa haddana ah siyaasi caan ah oo soomaaliya laga yaqaan oon iiga baahnayn tacriif waa cabdibarre yuusuf jibriil marka waxba nooma harsana aan ka ahayn inaan asaga iyo adinka idin mahad celino gaar haye waxaan idin keennaa labeentii ummadda soomaaliyeed ama ha ahaadeen culummo dhaqaatiir aqoon-yahanada maadiga siyaasiyiintii gobolladii hal abuuradii marka dadka xataa iska dhibsanaya fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa saa sheegno laakiin marka waraysiyaasheenna habeen dambe arrimihii baydhabayaan ka hadli doonaa marka dadkoo dhan waa u furaya meesha kasoo wada qaybgala marka waktigii baa nahaya waxaan idinka tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu